Shiikh Cali Wajiis oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa waxa uu markaasi madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay in midnimada ay adkeeyaan dhinaca kalena shacabka ay ugu baaqay inay cadeecaan madaxdooda sida warkani uu ku eegayo shaacir yare. Shiikh Cali Wajiis oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay mar walba ahaadaan kuwa ka wada tashada aayaha dalka iyaga oo wada jir ah mar walba. waxaana uu sheegay haddii ay taasi dhici weyso in uu imaanayo burbur iyo kala tag dawladnimo. si gaar ah waxa uu dardaaran ugu jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. marka mabda'a koowaad waxa weeye waa amruhum shura baynahum. muslimiinta taladooda waxay ku go'daa shura iyo wada tashi. taas ku go'daa. mabda'aas waa mabda'a dawladaha burburayo markay ka leexdaan ay burbureen way. waa mabda'a dawladaha taagan markay qaateen ay ku taagan yihiin way. wuxuu leeyahay Sheikh Islaam Ibn Taymiyyah dawladaha wada tashiga iyo cadliga ilaaliya guud حتى قال هدي قال يجين إلهي وباقي يا لابوير مدمان دولتها وذا تشجع هي عدالة كتجنا هدي مسلمين هو الدمان بوير حتى هدي مسلمين وكتاب مدح أوسارين هاي همين مال آخرنا أيان والدمان لأنه السنة إلهي كوني قال وحكون لسنت هايوا عدالة الآن إيه وذا تشجع الآن أنا وحبت لسنانين مركز السنة إلهي بيسكون عيان مركز وبابا عيان مركز تامرك هو مبدأ كوباد وي مبدأ أس وذا تشجع مركز سجارة هذا الحلقة اللي جوجو وده تشجع وسجارة ودعية أو الدرجة الأولى قلاياش رسمك اللي أستيبه إني وده تشجع يجو أي ثلاثة قرن كستقوليه إيه جاميان سيدي برلمان دولة كستقوليه هذا لبديس أقل يقولها فلنتا ثلاثة قفك يكسر أروري سنة وحواي أو الدنيا إنه ثلاثة باهيو دوشنا كإلاليو ومدحوينه مدحوينه أسوق حواي ورأس الدولة دوس الريوي قلاياش الدستور كإنه إلاليين واجب يكوته إنه هو جان سوين واجب يكوته markii go'aanada arrimaha masiiriga oo dalka khuseeya la soo gorfeeyo oo golayaasha iskala ay soo rugroogaan oo ay soo taxliiliyaan waxa ay soo gaaraan saddexda gole ee labana ay tahay baarlamaanka labadiisa aqal midna uu yahay fulintii xukuumadda yihiin nihaayada waa in isaga u timaada asaga ku jiidaya marka haddii aaraad iskhilaaftana ra'yiga asaga oo ayido ayaa sharci ah laanu Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fabima rih marka fiiri istibdaadki iyo kalitalisnimadina ayada bilowgeeda ilaahay ku tuuray waxa ka dhalnayna waa sheegay waliba waa burbura ka dhalnay waxa aan sheegayna way ayda saa ilaahay bilowga ku sheegay gabagabadina haddana go'aanka ugu dambeysay loo qaadanayo Allah waa sheegay islaamku wax walba isaga cadeynayo Allah wuxuu leeyahay fi surati al-imran fabima rahmatin min Allah linta lahum naxariis ilaahay sababteeda ayaad ugu jilcsanaatay naxariis alla xaqiisa ka ahaatay sababteeda ayaad ugu jilacsan tahay waa tilmaanta ninka xaakimka ugu sareeya dalka laga rabo ila booska nabiga madaxda joogta sarsare waxa weey inay sidaas oo kale u jilacsanaadaan dadka dhigeystaan oo ay dad mar walba u dabacsan ay ahaadaan maslaxada guud fabima rahmatin min Allah naxariis ilaahay xaqiisa ka ahaatay sababteeda baad waa sababiya leeyahay fabima baadaas waa sababiya sababteeda ayaad linta lahum ugu jilacsanaatay muslimiinta iyo dadka hogaamisid walaw kunta faddan hadad ahaan lahayd nin kariway ah nin adagoo qalafsan oo garmaqaata hadad ahaan lahayd faddan غليظ القلب قلبيسuna qalalan yahay oo adag yahay oo wax asagu raamayn wax kale aan aqoonin hadad ahaan lahayd lam faddu min hawlika way ka kala carar lahayn qof kale joogta ma aragteen baa kala tigi lahayd qof oo madax adag oo kariway ah oo tala yeelin hal qof la joogo mayso. Shiikh Cali Wajiis ayaa dhinaca kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay adeecaan awaamirta madaxda dalka. garabka shacabkuna muxuu yahay garabka shacabkuna waxa weeye طاعة ولي الأمر مدحدا إن لا أطيعه إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كله يا الذين آمنوا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مؤمنين إلهنا أطيع رسولنا أطيع مدحدينا أطيع مدحدا وحال أطيع وحكست الدنيا ذا نكون سابسن مامل كذا وأن معسي لها أنا هين أما الدين تكون سابسن وأن معسي لها هين الدنيا آخر بقول أطيع وحكست إلهي وسكع عرورين الدنيا ذا رأي كذا بكون سابسن رأي جودا ما يجا إسكاله أيضاً والمغلس انتنا آيات كلاوي نبي قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في المنشد والمكره في اليسر والعسر وحدشينا إن مدحدين نقدم يسون الدعدين في المنشد والمكره وح الدعشين إيه وح على إذن قصبة أذن جعلنا بقى في العسر واليسر وح إذن كل علس أذن قاعد كرنا إيه وح الدعشين ومعناه استف أذن قاعد كرتينا فضود أو إذن كل فضود بقى hadalka Shiikh Cali Wajiis ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
oo ay garbihiisa joogaan xubnayaasha sarsare ee golayaasha dowladda uu saxiixa ku duugay sharciga doorashooyinka qaranka oo jihaynaya nidaamka hal qof iyo hal cod. Shaafici Cabdinaasir Maxamed, Shaafici Shaacir, SBS, Muqdisho.